cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro musharaxa jegada madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo ku sugan magaalada burco ee xarunta gobolka tugdheer ayaa maanta mar uu ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loogu qabtay magaalada burco. taageerayaal kusoo biiray xisbiga wadani waxaa musharaxu si adag uga hadlay xaalada sicir bararka ee ka taagan guud ahaan dalka, isagoona tilmaamay nolosha dadka rayidka ee waqti xaadirkani maraysa halkii ugu xumayd. waxaana musharaxu markii ugu horeysay uu ballanqaad ballaaran u sameeyey cuqaasha iyo salaadiinta Somaliland, isagoona sheegay in haddii ay ku guuleystaan xilka ay xukuumadda wadani u kordhin doonto mushaaraadkooda boqolkiiba 200. waana kan musharaxa oo ka hadlaya arrimahaasi. walaalayaal, waxaynu ognahay in maanta noloshii dadku khatar ku jirto. waxaynu ognahay in sicir barar naxariis daran ku jiro. waxaynu ognahay in qiimaha shilinka Somaliland uu marayo milyan iyo 200. waa halkii taariikhda ugu sarreysay ee gaadhay. waxaynu ognahay in ninkii muwaadinka ahaa ee mushaharka qaadanayay iyo kii danyarta ahaaba ay maanta ku adag tahay inuu raashin iibsado. mujtamaca dhammaantii ugu saamaysay arrintaas. waxaan kala ogaaday mujtamaca qaybaha ugu liita inay ka mid yihiin cuqaashu. maalin dhawadin cuqaalo oo aanu waraysanay waxay nagu yidhaaheen mushaharadaydu waa 270 kun oo laana. هذا عاقلكم وحكم مسؤولية بلدان وحكم مسؤولية أمنية وحكم مسؤولية هشيسينته وحكم مسؤولية مجاها إنك أنت صورنا كمسؤول كاهي بيش إنك مسؤول كاهي لا بقولية تضواتكم مقاطعة ولي بهذه ملا على واركم معارض فيه وحلا يلا والله قاعد ترى يلا بقولية تضواتك كيفكم. isagoo sicir bararku dhammaan shacbiga saameeyay. ciidamada horaan uga hadalay waxaanu haddana maanta ka cadaynaynaa halkan in dhammaan cuqaasha Somaliland aanu boqolkiiba 200 mushaharada u kordhinayno haddii la karo. xukuumadda waxaan leenahay waxa lagaga baahan yahay inaad sicir bararka wax ka qabato oo aad weliba adigu sabab u tahay sicir bararka. lagagama baahna marka mar labaad ay doorataan ayaa sicir bararka wax ka qabanaya. miyaynu ka aqbalnaataa? dee horta naga qabo weliba 6 cisho haysataa dhowdhowi wax ka qabo. isku soo wada xooriyo maaha markii ugu horeysay musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo uu sameeyay ballanqaad weyn shacabka kala duwan ee Somaliland. waxaana jiray ballanqaad hore oo musharaxu u sameeyay ciidanka qaranka Somaliland. waa Khalid Bakayle fogaana raga xorta Star TV Burco.